السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclaystay in la wadaago arrin yar oo muhiim ah. qofka bil aadamka ahi waxa uu leeyahay jismi iyo wuxuu leeyahay ruux. waxa uu leeyahay muuqaal daahir ah oo muuqda oo qofka marka qofka kala arko uu qofkaas waxa ku jira iyo qaabka uu eegyahay suuraysan karayo. haday tahay qaabka uu labisto iyo qaabka uu eegyahay iyo qaabka uu dhaqmo. xalay qaabka uu eegyahay waxa kale jira wax loo yaqaano jamaalul macnawi baa jira iyadana wax loo yaqaano oo quruxda macnawiga ah. quruxdan xisiga iyo qaabka qofku labisay qaabka uu eegyahay waxa jira kale jamaalul macnawi wax loo yaqaano oo ah akhlaaqda qofka. marka labadaas waxa qiimo badan oo qofka qiimaha u yeela waa akhlaaqda macnawiga ah. oo مثلا tusaalana kala waxa jira Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu faray leeyahay faraa'il afar ah waa salaad iyo sako iyo soon iyo xaj. afartaaba marka si dhiibliyo u eegtid waxyaabaha xikmadaha ku jira waxa kamid ah in qofka dhaqan wanaagsan ku hagayaan waana jamaalkii macnawiga ah. tusaalahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar quraanka warramay salaada wuxuu inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. salaada waxa ay u tukaynaa waxa weeyaan inay naga reebto wixii fahshaaga iyo xumaantii inay naga reebto. tiyarad iti weyneedba sakada Ilaahay markuu ka warramay wuxuu khud markuu nabiga leeyahay sakada ka qaad khud min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. yani sakada qaad tahirta oo macna weyn iyo xisiba u tahirta ka qaad nabiga kaleey salaatu wasalaam Ilaahay ku leeyahay markuu ka warramay Ilaahay subhanahu wa ta'ala soomka. Ilaahay waa ka quraanka kule kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ay likay tattaqun saylahu qabsatan oo taqwada Ilaahay bay ila kugu hagaysaa soomku. markaad soomtida Ilaahay af xidhatid waxay kugu hagaysaa inaad qof adoon Ilaahay noqoto Ilaahay ka cabsada. wadada Ilaahay ka cabsada waxa qof dhowrsoon. حج إلهي مركو الرمي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انتهى إلهي وينك منعي حج كمان عبادة حج كل شيء وقف وين الطريقة إنه أدون إلهية مركا أخلاق تبى للسيسة قفك أخلاق دي سبا كريسة. وأنا حكمة إلهي سبحانه وتعالى إنه وجه لي متكمل حكمة إلهي سبحانه وتعالى أركان الإسلام. qofka islaamkana waxa loo baahan yahay mar walba inuu ku dadaalo jamaalkiisa macnawiga in badan intuu ku dadaalo jamaalkiisa daahirka iyo usmada waa iyadu waa mubaax wax weyn qofku inuu isqurxiyaa oo dhan waa wax weeyaan waxaan leeyahay waa mustahab oo waa wax wanaagsan weeyaan qofku inuu isqurxiyaa oo jamaalkiisa daahirka. laakiin in badan waxa muhiim ah qofku inuu akhlaaqdiisa suluugiisa iyo qaabka uu dhaqmayo wanaajiyo. qaabka uu dhaqmaysid baa wuxuu go'aaminayaa waxa aad berito la noqon doonto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.